نزرع أماني بتربة اللي يعني فينا نبقى يا نبيع الحياة. احنا غيث المحبة للي كم جف قلبه وابتسامة تشد الانتباه. فينا نزرع أماني بتربة اللي يعاني فينا نبقى يا نبيع الحياة. احنا غيث المحبة للي كم جف في قلبه وابتسامة تشد انتباه. ما مللنا ولا من عملنا ننتظر مردود. مجتمعنا اجتمعنا يرتقي ويسود صوتي. kulanti haboon dhammaantiinba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. salaadiinta madax dhaqameedka dhalinyarada aqoon-yahanka haweenka iyo martida kale ee munaasibadan qiimaha badan ka soo qayb galay waxaan idinka mahad celinaynaa martiqaadka guddida qabanqaabada xafladda caleemasaarka ee caaqilka beesha Idriis Cabdalle ee ardayga Bahay Ismaaciil idinku martiqaadeen inaad si weyn u soo ajiibtaan kana soo qayb gashaan munaasibadan qiimaha badan. waxaan idinku soo dhaweynaynaa gacmo furan dhammaantiinba. maadaama aynu nahay ummad islaama xafladeena ayaynu gudageli doonaa. bal ugu horeyn waxaynu ku furi doonaa aayadaha quraanka kariimka intaynaan u gelin qaybaha dambe ee xafladeena iyo ujeedada guud ee aynu ugu talagalnay oo ah caleemasaarka caaqilka beesha Idriis Cabdalle caaqil Sheekh Axmed Xaaji Yuusuf Xaaji Maxamed Xaaji Jaamac. bal ugu horeyn waxaan ku soo dhaweynayaa Sheekh Cabdiraxmaan Xariir oo aayadaha quraanka kariimka ah inoogu furi doona madasheenan si qaybaha dambe inoogu wanaagsanaadaan. falyatafadal mashkuuran mahjuura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. waxaan bal ugu horeyn ku soo dhaweyn doonaa gudoomiyaha guddida qabanqaabada ee xafladan ama munaasibadan bilan ee boqoran ee sida weyn loo soo agaasimay soo qabanqaabisay oo in muddaaba ku hawlanayd sidii munaasibadan ay u qabsoomi lahayd. Axmed Maxamed Weyd ayaa ku soo dhaweyn doonaa oo ku hadli doona afka guddida qabanqaabada ee soo qabanqaabisay caleemasaarka caaqilka. soo dhaweyn salaatiin jiif caaqilo gudoomiyayaal caaqilo odayaal dhaqameed dhalinyaro iyo haweenba waxaan isku salaamay salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalayaal wax kale uma kicin waxaan u kacay uun in aan idinku mahadnaqo aan idinku soo dhaweeyo sida wanaagsan ee aad soo ajiibteen iyo caleemasaarka caaqil Axmed Xaaji Yuusuf oo aynu madashan u fadhino oo aynu doonayno inuu noqdo insha Allah biidhnillaahi alkariim mid wax u tara beesha maanta haddii aaba ku roonyay soo dooratay ee weliba isagoo aan doonayn
ma garanaysaa ay ku khasbeen marka had iyo jeer lagu soo doono arrinkana uu ka duwan yahay oo ilaahay baa kugu kaalmeeya marka insha Allah anigu hadal badan oran maayo salaadiintii baa inaga dambaysa iyo cuqaashi iyo gudoomiyaashii mahadnaq iyo maxamed shukran jazaakumullahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh markana waxaan ku soo dhaweyn doonaa suldaan maxamed cabdilaahi oo ah suldaanka guud ee Bahay Ismaaciil sacab ha lagu soo dhaweeyo si kelmadiisa halkan uga yiraahdo munaasabada caleemasaarka ee caaqilka soo dhawo suldaan marka hore waxaan salaamayaa dhammaan beeshan maanta caaqilka soo dooratay ee beesha Bahay Ismaaciil ee aan ahay suldaankoodii guud mar labaadkana waxaan salaamayaa marti sharafeedda aanu ku marti qaadnay xafladan qiimaha leh ee sida wanaagsan loo soo agaasimay ee aanu maanta lagu dooranayo caaqilka cusub caaqil Sheekh Axmed Xaaji Yuusuf Xaaji Maxamed Xaaji Jaamac ugu horeyn marti sharafeedda waxaan u sheegaynaa maanta inaanu halka ku daahfurayno caaqilka cusub xafladiisii iyo caleemasaarkii oo ishuwan oo wada socda insha allahu tacaala idinkuna aanu idinku marti qaadnay nalana caleemasaari doontaan waxaananu uga mahad celinaynaa dhammaan martiqaadka aanu idiin fidinay sida wanaagsan ee u soo ajiibteen ee uga soo qayb gadasheen ayaanu mar labaad iyo mar saddexaad ba idinka mahad celinayna mar labaad halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan cid kasta waxaan ku salaamayaa teetalkeeda salaadiinta culimaaudiinta dhalinyarada dhammaan marti sharafta ayaan cid walba aan ka salaamaya intaa waxaan raacinayaa in maanta halkan aynu ku caleema saarayna caaqilka oo aynu ku soo dhaweynayno aad iyo aadna waa idin salaamay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sida kooban ee uu inoogu soo koobay iyo mahadcelinta sidaad u soo ajiibteen martiqaadka caleemasaarka caaqilka beeshay darays cabdalle ee ardaaga Bahay Ismaaciil caaqil Sheekh Axmed Xaaji Yuusuf Xaaji Maxamed Xaaji Jaamac oo ah nin dhalinyaro ah marna ah nin guurti ah oo bulshaawi ah oo bulshada oo dhan ay wada taqaanay isaga laftigiisuna bulshada si fiican u kala garanaya bal markana waxaan ku soo dhaweyn doonaa oo afka qurba jooga ee beelweynta Darays Cabdalle oo daafaha dunida meelo kala duwan ka jooga oo iyaga laftigooda munaasabada qayb weyn ka ahaa si weyn uga qayb qaatay Axmed Maxamed Sheekh Maxamed Cabdalla oo munaasabadan isagu qayb weyn ka ahaa qabanqaabadeeda kana mid ahaa gudida sacad lagu soo dhaweeyo waxaan ku hadli doonaa markan afka qurba jooga meel kasto ay joogaan soo dhawaad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعدي اسمع الله هنا كنا تكهدش ذاك ولا يقول قاضي حدنا واسك وضن دونا أنا وكوكيل قرب شوجا ميري شوجا با عاقل واحد كبد دونتا حنبليو انت هو حير هذا لفدبرتا حفلة يوناجن يشرفتن waxa lahaa qurba jooga oo soo taageeray si fiicanna uga soo qayb qaatay marka waxay mudan yihiin in loo mahadnaqo siiba dadkii aad ugu takhasusay ee ka soo shaqeeyay hadal dad madaxdii baa fadhida meesha oo ku soo dhaweynaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaadiinta hadalkoodu wii dambayn doonaayo iyaga xagga dambe ayaan marsan doonaa balse marka waxaan ku soo dhaweyn doonaa odayaal dhaqameedka xafladan goobjooga ka ah beeshay Darays Cabdalle marka waxaan ku soo dhaweyn doonaa oday Saleebaan Cali xafladan dadka yimi waxaan filayaa wixii ga weyneen ay jirin dadku barigii hore odayaal dhaqameedka iyo dhalinyarada
waxaa la yidhi inaan la yidhi odayaal sheeko lahayn baa layidhi boqor aan shuulis lahayn sheekh aan baliiqad lahayn midna laguma noolaado odayga in wax laga faa'iida baa fiican iyo ninka cilmigalaba waxaan horta salaamayaa salaanta islaamka ku salaamaya xafladdan dadka isugu yahay islaamka ah boqorrada iyo cuqaasha iyo odayaasha iyo dhallinyarada haweenka waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa waxaa weeliya xafladdan dee waxaa la isugu yimi doorashada caaqilka axmed xaaji yuusuf xaaji maxamed xaaji jaamac markaa waxaan u mahadnaqaynaa dadkaa sharafka leh isugu yimi waxa weeye qoladan idaris cabdalle caaqilka baha ismaaciil inaga ugu horreyn jiray beygii hore xuseen dallaadeed baa caaqil ahaa iminka waxaa noo caaqila dee qolada rooble maxamed waa loog yahay kanuna waa caaqil idarays guud caaqilka guud waa rooble maxamed dadkii si kale u fahmine saddexda baha ismaaciil waxuu caaqila xasan cabdilaahi xasan ibraahim cabdilaahi baa u caaqila caaqilka guud waa xasan cabdilaahi dadku si kale yuu fahmi kanuna waa caaqil idarays maxamed ibraahim kooshin waa caaqil reer abukor baa isagana ku qoran ninka la yidhaahdo suldaanka dee baa ismaaciil waxa weeyaan axmed maxamed cabdilaahi xirsi marka waxa weeye dadku imika qoladan baha ismaaciil waxaa laga yaabaa dadka inay ka dambaysa cuqaashu imika dee ceeb male markay soo kordho ninkii reer wuxuu u kordhinayaa reeraha waxbuu u kordhinaya waxba yeeli maayo ka suldaankii wey ninkii caaqibay waxbuu u kordhinaya yaan waxa mushkiladoo dee imika dadka qaar baa u arkaya reerahan qolyaha iyaga gaashaabuurta ee wadan gubuur iyo baha ismaaciil waa maxay cuqaal caaqilka qurni maxaa taagan waxaan u garaadsaday imika nimanka isxaaq oo 9 caaqilo qura leh imikana 30 ka badan waxay wanaajiyaan wada ninka rag waxba ma xumeeyo dadka qaar baa si kale u fahmay marka waxa weeye cuqaashi iyo dee madaxda waa lagama maarmaan ninkii caaqibay waxba kordhinaya waxba xumayn maayo marka anaga caaqilkayga guudnada waa ina ibraahim cabdilaahi labada qole kalena maxamed waxa weeye caaqilka abukor buu warqadda ku soo qaaday kan maanta ay xafladiisa u fadhiyaan waa ina xaaji maxamed xaaji jaamaco waa dee reer idarays laakiin caaqilkayga guuda baa ismaaciil waa ninka sidaa ha loo fahmo dadka qaar baa la tahay inay yar marwar ku jira ay la yar muuqanaysa marwar kuma jiro suldaankayguna daweyne cabdilaahi xirsi sidaasaa dee xigaalku ku ogaanaya oo arrinkooya marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu oday ibraahim ismaaciil cigaal si uu kelmadiisa isaguna halkan inooga yidhaahdo oday dhaqameedka ayaynu dhinac isu raacin doonaa si salaadiinta hadalkooda ay ugu dhiibo walaalayaal aad iyo aad baan ilaahay baa mahadda leh aad iyo aad baan idinku mahadinayaa sida sharafta leh noo soo ajiibteen ee uga soo qeyb basheen caleemasaarka axmed yuusuf maxamed caleemasaarkiisa waa nin culimaa culimo badan uu soo barbaariyo diinta baray baa iminka ayuu malcaamada sii haya dadku had iyo jeer ale waxay yidhahdeen keebaa u hadal badan oo u firfircoon yay caaqilada ka dhigtaan annagu waxaan ku soo dabaallay bal horta kuwaasaa laga dhigi jiray iminka aan culimo ka dhignay innagu sidaasaanu culimo uga dhignay waa in la helo war sidaa aan yeela mooyaan ruux yidhahdo war ilaahay ka yaabo shareecada islaamka ku soo dabaalo bal inuu noqdo cidda mas-uul laga dhiganayo waxay raacay dadku haba noqdo baha ismaaciisha gudaheeda ha noqoto habar yoolista kale waxaa laga yaabaa inay caloosha ka guuxayso ama carabka la iska weydiiyo war idarays cabdalle waa kan caaqilka samaystee talo miyuu ka baxay baha ismaaciil
in la isweydiiyaa suuraa may kama baxayna baha Ismaaciil wax kale lagu soo biiraa waan u baahanay waxaanu ka baxaynaa ma jiro taan iyada u sheega reerku baha Ismaaciil lidhaahdo wuxuu leeyahay caaqil guud buu leeyahay waa Xasan Ibrahim Cabdullaahi ilaa 3 oday buu marayaa caaqilkii ka horeeyay reer Darays buu ahaa sidaas ay wahay silsilad taxan baha Ismaaciil guud ahaan markay tahay caaqilku waa ka hore gaarana dadku wuxuu u baahan yahay wax qoyskii uga sii horeeyo gacan yara uu u baahan yahay Maxamed Ibrahim Kooshin oo caaqilka reer Bukara iyo Axmed Xaaji Yuusuf oo nimka anagu soo dooranay labadaasina waa labada reer kale caaqiladoodii baa ayaa meesha taala sida ha loo fahmo aad iyo aad marti sharaftan qiimaha leh waxaanu leenahay ninka aanu soo dooranay baha Ismaaciil ahaan ku soo dooranay Darays Cabdallah ahaan ku soo dooranay oo qoyskani Daraysa nala caleema saara sida noogu timaadeenna waa idinku ajiibaynaa intaasaan kaga baxaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bal markan maadaama salaadiintuna ay dhinac isku raacayaan dhinacna waxaan isku raacin doonaa caaqilada munaasabadda inagala soo qayb galay marka waxaan ku soo dhaweyn doonaa Chief Caaqil Cabdi Guuleed soo dhawow saac badan lagu soo dhaweeyo si uu kelmadiisa halkan uga yiraahdo caleema saarka caaqilka beelweynta Darays Cabdallah soo dhawow waxaynu joognaa dhammaan marka waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka salaadiinta iyo uqaash iyo odayaasha iyo culimada iyo dhalinyarada iyo hablaheena waa wacan dhammaanteen waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaynu joognaa xaflad aynu ku calaamisaanayno caaqil cusub waxaan doonayaa inaan horta yar iftiimiyo kelmaddan caaqil xaggay naga soo gashay goormayna ugu horeysay caaqil maxaa loogu talagalay caaqil muxuu ka qaaday shaqadii ay hayeen caaqil wuxuuna soo galay waqtigii cusmaaniyada magaca caaqil magaciisu waa dabar waa caqala wuu dabri weeye wuxuu dabrayaa reerka nin gumaysiyo loo yimid muu rabi inuu dadka wada dhex maro kama u gaari karay ninkunu soo ogan jiray ninkaa caaqil buu bixiyey ninkaasuu reerka u adeegsan jiray waxay meesha ka saareen guurtidii suldaanka awal horeyna waxaan lahayno suldaaniyo guurtidii bay meesha ka saareen waxaa loogu talagalay wax dadka hore yimidayna gumaysanayey iyo reeraha u dhexeeya ayaa loogu talagalay markii hore ama cusmaaniye ha noqoto ama ha noqoto ingiriis laakiin markii dambe shaqooyin badan bay la wareegeen martii bay la wareegeen dadka xaq inay kala xaqaan bay la wareegeen inay kala xukumaan bay la wareegeen uqaashu waa uqaaja halkaa ka timid markeeda hore bitaaqadooda waxaa ku qoray wasaaradda arrimaha gudaha waa niman siyaasiyiinaya iyagu marnooku maaha dhaqale horta sidaa u barta ta kale waxaan raacinayaa waa shay dhib badan caaqilku mar kasta waxa lagu haystaa dembi aadan gelin waxaa kaa soo ashkatoonaya odaygii isagoo inankiisii ashkateynaya wuxuu hore inankayga iga qabo waa inankiisii gabadhii baad odhanaysaa waa ninkayga iga qabo waa labadii dad isugu xigay mar kasta waxa lagu haystaa beenaadan qabin mar kasta waxa lagu haystaa arrinaadan qabin waa wax dhib badan waxa ka baxa uun ninka saddex la yimaada duuqaad iyo hubsiimo iyo batashow dadka la tashado saddexdaa ninka la yimaado baa ka baxa caaqilka maanta aynu caleema saaraynaa waa nin sheekha wuxuu haystaa gundhig buu haystaa diin buu yaqaanaa diintu wax kaloo ummadda laguma soo rogo inay kala saarto oo ay habto oo ay meeshooda dhisto adigu waa ku kala tukaday ninkani maanta caleemasaarayna u caleemasaarana caaqilka isagoo imaam masjida waan dhagaystay cilmigiisa waxaan ku kalsoonay inuu wax badan ku soo wadin doono beeshaan walaalaha nahay ee baha Ismaaciil guulahan idaraysna ninkii hagayaynu noqon doono iyadoo marka horeba waxaan jiray idarays hoggaanka baha Ismaaciil ugu horeeyey waa ninkii qalay 20 neefeeya markii la duranayay waa ninkii yidhi ingiriis oo kale annaga haddaan nahay baha Ismaaciil
habar iyo isagoo hilibkii cunaysa ninkii tusay buu ahaa ninka dakaba keenay garays buu ahaa waa dad hogaanka yaqaana kii ka tasawiray ee ku sawiray buu ahaa markuu xuliliga dareemayna garays buu ahaa ee inuu heerkayga cagtiisii taasay leedahay kaasuna wuxuu ahay garays kii salaadna tukaday oo islaam tukaday dib loogu celiyay leeri sheekhiina yimid fuucad ee dib loogu celiyay garays buu ahaa waa niman taariikhle waa niman aan nooganahay waa niman aan soo dhaweynayno haddaan weliba anigu aan ahay jidkii reer suudaha ilaashee waa ismaaciil wax weyn waa rusumay waa gala galaynaa caaqilka kii horena waa gala galnay waa la tashanaynaa taladaan wax ka siinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markana waxaan kusoo dhoweyn doonaa guddoomiye xariir jaamac oo isaguna kelmadiisa iyo hadalkiisa caleemasaarka caaqilka ku aadan halka ka jeedin doona sacab ha lagu soo dhoweeyey isagana ikhyaarta halkan isugu timi nooc kastoo ay kala tahay anoo mid walba teetalkiisa ku xusaya waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ilaahay baa mahad leh waxaan si gaara ugu mahad celinayaa xafladatan qiimaha leh inta soo abaabushay ama idarays cabdalle ha noqoto ama baha ismaaciilba ha noqoto intaana waanu mahad celinayaa ilaahay baa mahad leh allahuma salli calaa maxamed caaqilka halkan maanta lagu caana shubayo waa shiikh wuxuu ku abtirsaday hiddi ku dardaari mayno ilaahagaad ku xidhan tahay allahaaga ku xidhnow mana ihid caaqil idarays mana ihid mid baha ismaaciil miihid mid habar yoonis caaqil ummadeed oo shiikha oo ummadda haga oo aqoon ku haga oo cilmi ku haga ilaahay ha kaa dhigo taasuna waa taas ha isku koobin baha ismaaciil iyo daraystoole taasuna waa taa xugaasha inta badan diin looma eego iyo damci ama dhaxal bay ku yimaadaan ama iminka iyagaaba isku caleema shube adigu bahasha aad ku abtirsatay allah kugu guuleeya dadkana ku had waana kaaga mahad celinaynaa waa baarigaynaa insha allahu tacaala cabdi guuleed kolley wuxuu yidhi wax gaaraanu nahay sideedaba dadku ama habal bay isku raacaan ama xilfi bay isku raacaan baha ismaaciil xilfi bay isku raacday ee habar iskubay raacin halkaana waxaan leedahay habar waxa aad la tahay idarays iyo muuse cabdalle nimankaa faraha dhaadheerli waxba yayna lugayne innagaa isku habarahe aan hoosta isku ogaan intaasaan ku daray allahuma salli calaa maxamed kuma waaninayno oo ilaahay baa ku waaniyey allaha kuu siyaadiyo insha allahu tacaalaa waxaa jira ardaaga baha ismaaciil wuxuu ahaa ardaayada habar yoonis iska ogolee midaysan had iyo goorna runta marka aan sheego cuqaashu qaarkood marka waxay wiildhashaba abbaa durka waxaad moodaa inay wax kala yar kaxayso oo annaguba markii aan idhaaha 2002 waxa aanu lahayn annagoo abokor loogaa hal caaqil maantana 6 caaqil baanu lahay 6daa caaqil midna mid magta lama bixiyo wadaa waxaa ka tusaysa cuqaashu inay tafarqu keento laakiin waxaan kuu sheegayaa halkaa ama darays noqda ama caaqilka hogaaminaya noqda magac iyo maamuus waxa lagu leeyahay midnimadii baha ismaaciil ee lagu soo nabad iyo caanabo maalay caaqilka jiifka ah waa la shaqayn intiina kale
halkan fadhiday darees cabdallowna aaminkeeda ka qaba baha ismaaciishiinii aad iyo aadna waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markana waxaan u yeeri doonaa sheekh cabdilaahi caqile oo isaguna kelmadiisa halkan inaga odhan doona waktigoo gaaban awgiina waxaan codsanayaa in hadallada dambe la soo koobo si munaasabadda qeybaheeda dambe aynu kusoo gudubno soo dhowow dhammaan masjid sharafta qiimo badan salaadiinta cuqaasha odayaasha culimada dhalinyarada haweenka sharafta badan waxaan idinku salaamayaa mar labada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahi subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa kulankeennan barakaysan ee aynu ku caleemo saarayno caaqilka axmed yuusuf sheekh axmed yuusuf maxamed xaaji maxamed in ilaahi subxaana wa tacaala inoo barakeeyo ka dhigo caaqilka mid barakaysan horena waa u barakaysnaa saaxiibkay sheekh axmed isagoo aan insha allah rajaynayno inaan calaamasaarkiisan dhammaanteen baa ugu wada ducaynayno in ilaahay subxaana wa tacaala xilkaa loo doortay ee ah cuqaasha baha ismaaciil uu ka mid yahay gaar ahaanna uu ka mid yahay beesha dareys cabdalle sidaa awgeed ilaahay ku asturo xilkaas ayaanu marka koobaad ugu ducaynaa amiin dhaha marka labaad sheekhu waa nin culimo ah ma aha nin qoys mana aha maxaan ku lahdaayay ardaa oday ma aha dhammaanteen dadka muslimiinta ah buu sheekhu yahay gaar ahaan deegaanada iyo dalkeennaba sidaa awgeed ha loola socdo sheekha markaa arrin kasta oo maxaan ku lahdaay xagga culimo ah iyo xagga dhaqankaba sheekhu aadna wuu yaqaanaa khayr allaha siiyo aqoon badan baan sheekha isu leenay saaxiibkay sheekh axmed aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa waan ugu hambalyeynayaa qaar ahaan uguna soo ducaynaynaa sanadkan waxa weeyaan u sheegaya weliba arrin yar oo jirta cuqaasha waa sanadkii culimada waanu soo celiirinaynaa xaruntaas bal markaa la socdo oo ha dhowto ha odhanan culimada dee ha yar fogeynina balna soo dhoweeya waa sanadkii culimada markana waxaan gudageli doonaa hadallada salaadiinta munaasabadda aynugula sugan beesha habar yunis waxaan kusoo dhoweyn doonaa suldaan cabdiraxmaan cabdilaahi gool suldaanka sacab ha loo tumo mashxaradna lagu soo dhoweeyo si uu kelmadiisa halkan uga idhaahdo ku aadan caleemasaarka caaqilka beelweynta dareys cabdalle soo dhowow suldaan marka horeysa waxaan aada u salaamayaa dadweynaha sharafta leh ee ka soo qayb galay caleemasaarka caaqilka waxaa kalaan nafteyda iyo naftiinaba u dardaarmayaa cabsida ilaahay intaa waxaa raaca waxaynu isugu nimi maanta munaasabaddan aynu ku calaamasaarayno caaqilka walaalkeen oo sheekheennii ahaa anugu aan aqoon badan u leeyahay sheekh axmed sheekh yuusuf sheekh maxamed xaaji jaamac waxaynu leenahay sidii uu sheekh maxamed oo halkan ka hadlay oo ahaa odaygii qabanqaabada ardaaga soo caleema saaray caaqilka uu sheegay inaanu diyaar u ahaynee reer ku keenay waan filayaa inaanu axmed caaqilnimo soo doonanin laakiin markii reerku wax iska weydiiyey ee loo gartay inuu aqbalaa waa waajib sunnaha waxa ah xilka haddii lagu garto inaad aqbasho waxaa markaa jirta baa la yidhahda helaysaa gargaarka ilaahay oo ilaahay baa kugu garab gelaya laakiin adigu haddaad u sicadiido oo aad kaambeyn gasho waxaa la sheegaa baa la yidhi inaanad maaragtay taageerada ilaahay helin waxaanu leenahay maadaama lagu soo xulay ilaahay xilkaa ha kuu fududeeyo arrinta meesha taallaa waxa weeyaan uun kolley dadku wuu badanayaa marka dadku batana dee dhaqanku wuu badanayaa oo lama odhan karo dhaqanku wuu koobnaan jiray ama sidaasuu ahaan jiray muxuu badanayaa waktigaa isbedelayo markii dhaqanku yaraana dadku wuu yaraa macaamilaadku way yaraayeen dhibaatadu way yarayd tiknolojiyaddu way yarayd markuu dadkii batayna waxaa badanaya ma xuma inay bataan waxgaradku iyo cuqaashu mid ardaaga dareys cabdalle aad baan uga mahad celinayaa oo labadii oday ee halkan ka hadlayba waxay si fiican u kala dhigdhigeen midnimada baha ismaaciil iyo baha ismaaciil inay ahayd ardaa jiif caaqil soo jireyna leh uu sidiisii yahay oo aan wax khilaafi jirin tanina ay tahay un mid ay dadka la qabaan ee uu yahay
الشيخ أحمد مانتا أرضاق هوساء إدريس عبد الله عقل كودي درداري كي وحياه خير أهان ووضع فردانو صدح دي أرضابا ونركاه هل كان نوي كهذلين وتصالون أكسن درداري كي وحياه هلا سيات كيو من نمدي أرضان نمدي بهاي إسماعيل هلا أتكيو عقاشة تعددي ولا تشي يا ورالمو يا مدنمو يا احترام لا يسكو احترامه قولها يا تلذا يا قدون كبا هلا سمايو سلادين توي تعددي وأنا قبضي سلادين بانو كتبان نمي عقلدنا هو لمد لكن رجال نمدي واحد كتشرتا عقلنا دنبه يا سودان كدنبه إن يتوسين يا تاجرو يا السوسود واشكو سمايان رجع حلك وجوري يا كوسعب في السلام كوها وشوضي أرنتها بفكستا أنتي لهيك كرسيابو نقولي لكن مركا ينيدو كوجشرتو وحبات سوكر نيسه لكن هدي أرنكا ويرى فعلسي يحن يسكعابي ونقضو حلك عجنا لهاي بركين مايو غيركن وحبك سوكر الميسيد أنا وأنا رجع عقاش على أرضا جنا عصب كرتين إنين أو أيفك متكريهين وأنا كرتين إنين تا حدنا لكن وادر دارا عام هو أنا شيء جايود ما دام أنا أنتوا نو كومين عد ولا ما أنت عيدك أنت عدودين لا هاي إن ما رك تيسكت كثير سنوات لا يو أو ولا رجع يكوها بونت هاي نسي إلى اليوم ورجع ذنبه صوت هاي الشيطان كده ولا يقوليه هراء إن وحباد ما رك يرسل يوتهم حاو مركين مركات عنت قوتات سؤال ويسال حاجة دي لا تغيرته وكاغا فريسنا يابا وكوغا علينا يا وكوغا امينيا marka mudakarnimada iyo xigaalnimada iyo soo dhaweynta iyo midnimada ragga dambe saaran tahay reerka maaragtay uqaashiisa tacaduda masala diintiisa tacaduda hada aragto talaxmo ku soo kordhay ninka dambe keenay ninka waxba laga saari maayo ninka dambe toosin taale taas waa taa ta kale waxaan halka ka soo jeedinayaa Sheekh Axmed oo nin culimo madama nin culimo yahay uqaashina ku soo kordhay kullu uqaash talada reerka diinbu ku soo kordhin doona guud ahaan waxaan leeyahay Ismaaciil dadku imika wuxuu ku dhaqmaa oo badan oo socota oo muusiq khayr oo socda in reer ku qaato dhaqankiisa macaamilaadkiisa ay u khaaska ama ay dadka kula macaamilayaan inay ku dhaqmaan shariicada islaamka waxaan ku talinayaa in shariicada islaamka ku dhaqataan in xaq ku bixisaan in ku qaadataan in maktab maaragtay agoonta qofka dhimanaya ee maaragtay waliil damka ilaahay uu siiyay xaqiisa alla ka waajibiyay inta qof dhinto sida neew dhaqanka hayd magta laga qaadan jiray ee magta la oran jiray jifo iyo qubano ee muddo lagu soo dhaqmaayay arintaas waxay noqotay arrin diinta ka hor imanaysa waa in la joojiyaa waa in la bedelaa waa in qofkaas uu yeesho hadduu agoon yahay iyo haddii uu aanu agoon ahaynba waa in uu yeesho qofka diyada ahay dhiigga qofka ilaahay u waajibiyay waa inuu diyada qaataa ilaa iyo wixii kharash ka baxa mooyaane waxa kaloo jirta oo yana ka mid ah oo u baahan arrin nolosheenu ku jirta sida Ilaahay Qur'aan ku sheegay marka qof dilo ee camdi u dilo shariicada islaamka waxay faraysaa Ilaahay ugu waajibiyay in la soo qabto iyo rasuulkiisuba oo dabeetana qofkii maaragtay qofka uu ka dilay gacanta loo geliyo faqad jacalna waliyahu lis-sultaan ba Ilaahay yiri marka inuu cafiyay iyo inuu diyo ka qaatay in saamaxay inuu tabalaya dad badan oo reer Soomaaliland ayaa ku dhaqmay makaarinta oo ardaaya oo qabiilooyin dhan oo qabiilooyinka waaweyn ee reer Soomaaliland kamid waaba isugu garagara bixeen waana ku liibaaneen taladina way ugu barakowday khilaafkina waa kaga yaraaday dadkina way ugu hagaagay marka taana halkaas aan baraarujinayaa oo bil munaasabad waxaan uga faa'iideysanayaa iyadoo wax wanaagsan oo caama maadaama caaqil sheekha caleema saarayno dee waa arrimuhu soo dhigi doonee ha lagu taageero haddii Ilaahay nafteena daayo taasna sidaa loo qaato in aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in xafladda ka soo qayb galaan ugu maaliman jirin xafladaha uqaasha iyo badana kuma badna oo mashquulkayga iska badnaa laakiin xafladan waxaan u soo ajiibay oo wali baan ugu soo degdegay saddex shay mid weeyaan ardaaga Idris Abdallah oo waalida oo duud saraa oo markii la yiraahdo Idris Abdallah caaqibay maanta sameynayaan ee la sheegay kaarkii la keenay waajib ay ugu noqotay inaan ka maqnaanin taas waa koow talabaad Sheekh Axmed oo naqaanay oo maaragtay aan culimo ahaan u kulannay oo anu hadii jeeraale sheekh meehi laakiin waxaan ay rag culimada kaaga dhowdhow marka aan ku kulannay dugsiga xaaxay oo mar madiirka ahaa aan ku kulannay meelo badan oo aan aqaanay qiyaadadiisa iyo maaragtay xalaal miiradkiisa iyo sheekhnimadiisa iyo odaynimadiisa leeyli sheekhaasa dhaqanka soo galayana waan ku farxay oo waxaan dee xasuustaa hadaan oolaayeen xaajoon ku kulmi doono
oo maaragtay aanu taageero iyo garab kale heli doono taasna wuu soo ajiibay ta saddexaad waxaa jira rag sulaadiinta ka qiimo badan oo cuqaasha ka qiimo badan magacu baa ku baxee oo hadda jiraale Soomaalidu waxay lahayd magac ay ninka caynkaas ku tilmaanto waxa la yiraahdaa boqortiiriye ama beeldaajiye Sheekh Axmed Maxamed Wado isagana aanu saaxiib ahayn culimadeena kamida hogaansiyadeena kamida booska aan sheegayna ku sifoowayna wuxuu ii keenay kaarka saddexdaas sifo saaran baan ku soo ajiibay waxaan mar labaad u mahad celinayaa ardayga Idris Cabdalle sida xusida mudan ee u kala dhigligteen in saddexdii arday baa Ismaaciil sidoo yihiin in chief aqalkiisi sidii yahay in labadii aqal kala fadhiyaan oo jaraan la maantana inuu aqalkii kale fadhiyo laakiin dib ma laha wuxuu baa inoo balan hadii Ilaahay nafteedu daayo diinta in lagu dhaqmo midnimadana la ilaaliyo ragga dambe ee dhaqankii hore ka daba yimi sulaadiin iyo maanta dhowr baan ku fadhinaa iyo cuqaalbana waxaan leeyahay walaalnimada iyo midnimada iyo reeraha isku xulkeedu inagu inugu jiraayo mar haddii aan baashi deeweynayno raggii haystay ugu nimi hal la ilaaliyo walaalnimada iyo midnimada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh markana waxaa ku soo dhaweyn doonaa Suldaan Axmed Maxamed Cawad soo dhawow Suldaan sacab badanna lagu soo dhaweeyo si sugra kelmadiisa halkan uga asha odayaasha aqoonyahanka ganacsatada iyo ardaha haweenka iyo ardayga halkan maanta ku soo bandhigay ama soo caleema saaraya in la caleema saaro soo doortay caqilka Sheekh Axmed Xaaji Yuusuf haween iyo odayaal iyo aqoonyahan baa waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi waa xaflad boqoran oo bilan oo aynu joogno inaynu caleema saaro shiikheena caqilkeena ay soo dooratay beesha Idris Cabdalle ardayga Baha Ismaaciil oo aynu halkan maanta u joogno caleema saarkiisa waxaan hambalyeynaya oo aad iyo aad ugu bogaadinaya rag iyo haweenba beeshaas Idris Cabdalle soo xushay halyeyga sheekha ah caqilka ah waxgaradka ah dhaqan yaqaanka ah ee u soo doorateen caqilnimada inuu hogaamiyo reerka oo ku soo biiro kuwii hore ee jiray aad iyo aad baan maartay ku hambalyeynaa hambalyo leenahay caqilka waa la sheegay waa sheekh waa qof cilmi yaqaana waa qof diin yaqaana waa nin ilaahay aqoon baray marka waxaynu dardaaran badan uma baahna diinta uu yaqaana waa tii lagu dhaqmayay ee aynu qoys iyo qofba ummad muslim nahay aynu ku dhaqmaynay isaguna kolley de hogaamiyayaasheena diimeed buu ka mid yahay ama madaxdeena diinta ayuu ka mid ahaa maantana dhaqankiibuu ku soo biiro waynu ku caleema shubaynaa waxaanu leenahay waanu garab taagannahay caaqilkii beesha Buunbuur oo isagana hawl yeeshay wuxuu soo diray hambalyo caaqilka wuxuu leeyahay waan garab taaganahay waanan la shaqaynayaa annaguna saas oo kale aanu la shaqaynaa haddaan nahay salaadiintiisii waxa weeyaan waxaanu aad iyo aad ugu faraxsan nahay soo xulidda soo xusheen ardaagiinu ninkaas wadaadka ah caqilkana ah ee ay noogu soo xusheen waa caqil waa Ismaaciil waa caqil Nawriyoonis waa caqil Soomaaliyeed waa caqil reer Soomaaliland oo dhan marka waxa weeyaan wuxuu soo kamid yahay cuqaasheenii hore ayuu ku soo biiray madax dhaqameedkii marka caqil insha Allah dee carabkaadana wadaad sheekh baa tahay oo ducaduna waa raacaysaa habaarkaaguna waa kacayaa labadaba kolley waxaan maranayaa inaad ka ducada noo badiso haddii la yidhaahdo ka khaldanna aad u ducayso ka wanaagsanna aad u ducayso ka khaldanna aad ilaahay inuu soo hanuuniyo oo wanaajiyo waddada toosan ku hagaajiyo ugu ducayso ka kalena aad wanaaggiisa ugu ducayso madaxda Baha Ismaaciil ogaasheeda iyo salaadiinteeda iyo siday u soo maqaalufaysteen waanu mahad celinaynaa waanu la qaadanay waana ku taageelnay aad iyo aad ugu mahad celinaynaa insha allahu bismillaahi kariim ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu noqdo caaqilkaasu
mid baa ismaaciil anfaca habeen yunus anfaca qaranka somalilan anfaca islaamnimada anfaca ilaahistaasaan ugu rajaynaynaa midka labaad anigoo ku hadlaya afkoogaa cumar annagu idarays dee ragba u sheegtay ragna deegaan u sheegtay annagu waxaanu sheeganaynaa inaanu idarays u ahaa adeerkayo waxaana ula jecelay guul iyo wanaag baan ula jecelay baa ismaaciil idarays insha allahu tacaala mar labaad iyo mar saddexaadna waxaa soo dhoweynayaa caaqilka axmed yuusuf ayaa soo dhoweynayaa waana u ducaynayaa insha allahu billahi kariim ilaahay mid khayr lah ka dhigo mid noo intifaaca ka dhigo soo dhowow baan uloona caaqil soo dhowow adigii intarays cabdilma soo dhowow baan uloona assalaamu calaykum waxaan ku soo dhoweyn doonaa cismaan fasal oo isaguna halkan kelmadiisa ka jeedin doonaa caleemasaarka caaqilka soo dhowow xagga dambe ayuu nagaga soo biiray sacab badan ha loo tumo ha laguna soo dhoweeyo hadalkiisa soo dhowow اللهم صل على سيدنا محمد وحان حفلة بلان قروح بدن لغو على مساري عاقلك شيخ أحمد يوسف وحان كل سلام يا سلامة إسلامك وفولي بتياتلك وسيتو أما مقع وسيتو أنك أوكو احترام يوكو كرامين يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وأنا صغير حبساميوني من ديارة السارة أيي أنا صغير أنا وهايدو قويس بانها ملا عثمان فصلي عثمان إبراهيم ياسين إلا قبل حد مركان قاردو أيي كرشدو موغانا يسابانو ملايين يا أنا قويس بانو نهاية شيخ أحمد qoys isku raasa ayaanu nahay caleemasaarkiisuna wadnaha iyagu ka soo go-ay iyo qeyb ma garanaysaa fog oo gacalnimo marka laga tago haddii aan la idmaayo dee wada dhalashada iyo raasnimada iyo sidaas iyo sidaasaanu isugu sii fognoo isugu raasnahay reerka baha ismaaciil ee maanta xafladan wada qabsaday ee saddexdiisii haamoodba fadhiyaan عاقلك على مسارية أيان هرت السعاد يا وبقادين يا أو أن السلام يا مخالفة مركا عين كات هيوم بمعنى لا ضاي قان كلينا ولقد وحبا ما ترتو وذا تشجع إسكاشجع كما هؤلاء إسكابسدو أيوبا ma garanaysaa wax kuu tara gacan keliya weligeed waxba kuuma goysay guul waa iskaashiga mar haddii reerkii uu maanta gacmaha is haysto oo halkan kulligii u wada fadhiyo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin annaguna waa noo farxad iyo reerayn haddaanu nahay beelaha kale ee habar yuunis ee haddii aan la idmaayo ama oodweyne ama inta isku noosha ah أما سياحة غارت عينو نهاي أننا وانو فرحة يا ريرين انت واحد دي راعينا يا ده أحمد وحوي ينقل لي اللوغو عليه صلاة إلهي واجب كاهدة أي حاجة وها خيرها بسامي وأكوي هلكم وقوي قلنا لديك جري سعد موسى صلاة دي والله سلام النقصدي صلاة دي والله سلام النقصدي حاجة يوكي يرهب سامو كبش لما هلكا كصوب حي وحيدا وارسوت الحاجة صلاة ديو مرة بعد بالا قيمة ده تقام الصلاة يا وحوي reerka magaca leh ee karaamada leh ee hadii la idmeeyo maantana hadii aad caaqilnimo iyo hadii la idmeeyo ay ku soo korodhay madax dhaqameedka uu soo galay reerka waa kaalin looga baahnaa oo uu mudan yahay boqolkiiba boqol weeyaan ilaahayna ha la qabto ilaahayna ha ku karaameeyo ilaahayna ha ku garab galo innaguna heegan iyo diyaar baynu u nahay
salaanta islaamka aan mar labaad ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. markana waxaan u yeeri doonaa caaqil maxamed ibraahim kooshin caaqilkuna wuxuu ku soo dhaweyn doonaa caaqilka munaasabaddan ay gaarka u tahay beesha idriis cabdalle caaqil sheekh axmed xaaji yuusuf ayuu ku soo dhaweyn doonaa marka uu hadalka dhammeeyo kadibna waxaynu gudageli doonaa ujeeddadii munaasabadani oo caleemasaarkii ayaynu toos u gudageli doonaa. soo dhawow caaqil. ilaahay baa mahadle. waxaa kaloona mahadnaqayaa beeshan baha ismaaciil ee fikirkii aan watay 20 sano ka hor ila qaadatay. aad baan ugu mahadnaqayaa. taas hore soo maray waqti badan iyo dhaqaale badan aan geliyo markaan arkay baha ismaaciil baaxad ay leedahay in cuqaasha la badiyo. fikirka baha ismaaciisha maanta ila qaadatay aad baan ugu mahadnaqayaa. waxaan ku soo dhaweynayaa caaqil axmed xaaji yuusuf xaaji maxamed jaamac ayaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka oo caaqilkaygii iga dambeeya oo aad ugu baahnaa howlaha reerku baaxaddiisu leeyahay. markaan qiyaaso aad iyo aad anigoo ugu faraxsan caaqilkaa maanta yimi. waxaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka. soo dhawow caaqil. soo dhawow. soo dhawow caaqil. soo dhawow. soo dhawow caaqil. soo dhawow. بسم الله الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الحضور الكرام. مركب ورئيسة وعن أمهد علينا يا إلهي سبحانه وتعالى بعد شكر الله إلهي مهد نقي سدبدي وحن أمهد علينا يا ضدك فراها بضل إلا بنتها maaragtay xafladan ka igala soo qayb galay oo ah culimada akhyaarta sheekh cabdalla abiib oo gartay halka iga mudee sheekh cabdinaasir iyo culimo kale fara badan waa joogtaa salaadiinta maxaa dhahday haweenka dhalinyarta maxaa dhahday cuqaasha aad iyo aad baan idin salaamay salaanta islaamka mar labaad ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaanta kadib waa mahad celinuun hadalkaygu iyo in xilkaa la ii dhiibay maartay imika la ii egmaday inay igu ducaysaan in ilaahay ii fududeeyo. hadal halkan ka baxayna si gaara ayuu ii soo jiitayo suldaan cabdiraxmaan cabdilaahi awgood jazaahu llaahu khayran oo ah inaynu shareecada islaamka u noqonno. hadalkaasina waa hadal aad u qiimo badan. maxaa ma doonayo inaan noqdo caaqil yidhaahda kitaab aan la dantay ma og kitaab aan lay dantay ma og oo shareecada islaamka deedafeeya. waxaan doonayaa oo ku talagalkaygu yahay in marjaciyadda aan u noqonayna ay noqoto shareecada islaamka. waa ballan waana amar ilaahay bixiyey ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum. saas oo kale ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum in shareecada aynu u noqonno waa amar aayaadka qur-aanka laynagu faray. falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayta wayusallimu tasliima. suuratu nisaa baa aayadda laga eegaya. waxaa layna farayaa inaynu shareecada islaamka dhaqan ka dhiganno oo ku dhisanno oo ku dhaqanno oo u noqonno. marka insha allah taasina waa haddii ilaahay ka dhigo ilahay waxay iga baridaan in ilaahay fulinteeda ii fududeeyo. ducana waa idinka doonaya bulshadiina sharaftay halkaa timi. maxaa dhahdaa waxaanan maaragtay aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaadna maxaa dhahdaa bulshada qeybada salaadiinta culimada cuqaasha dhammaan u mahad celinayaa. aad iyo aad baan u mahad celinayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. بالوجع ما نبالي وسط سود الليالي شعل نور كلنا عزم وإرادة في طريق الريادة والتطوع عبادة وبشور.